بشير عيسى علي إسي أنه أوغا أنه إن بدنو إنا كميدا وأوغنا هاي وكما بشير عيسى علي وإن كبدن سان شيغنا كونتون سنة أها خبير كشقية بنكية وحا آدو فرح سنة يعاونا كسو قيب قلو مدشان اللي يقدو ديو dhibaatooyin ka haysta habka maamulka maaliyadda hay'adaha dawliga ah iyo qaabkii loo hagaajin karo runtii meelaha aynu ka liigayno meelaha ugu liita bay ka mid tahay nidaamka maaliga hababkii oo dhan waa qoran yihiin sharciyadii oo dhan waa yaalaan laakiin bini aadankii fulin lahaa ayaan diyaarsanayn waxaan doonayaa fursadda inaan ku soo dhaweeyo بشير عيسى إنه هالكن إنه وصل بالبيو أغنت إنه فتشي هدي جل معلم بعيل شو جاي هذا إن حكوا قال له بقية يصير أول شقيان وعاوة يقفلوا بغالك يورده يعني كنا في إن هذا وحده لحدن كي إلى تضوات يلا بدي تضوات يصدق دي ملهاس شيلينك سوماليا قيمه سوى دجنا دولار كوح هنشري لح إلى تضبط أنت ودحيسة بهنشري أسعارته وحي هنشرتي شن لح بي كل شيء تكبر الأمة كل شيء غالو مركزاس ودجنا كبعد دولته أنت ولا جاهد واحد بالوضع حوار إن شغا أمور إيو مشاريع إيو إن بالهابطوتا سحوار يربي سيسه هلم بي واحد بالوضع إن حوار سوق العقد كبلته لكن واحد يسمى هيد أرنتو سوحي فرها كبحدي دقالكي 7 وإثيوبيا للقلي وجهك اللبعض ضد وإن لجوز موضوع لجونا رنتي للدولستاغو أشي إذا هو رئيسا وحن شاء حي إن بشير عيسى أو فيديو وحين راح يدتا لما مسؤولية ضد وين وعارفي بنجيا مسؤولية كم يدين ilaalinta lacagta iyo maareynta iyo maxkamaynta inaasay farq awoodihiisa mas'uuliyadihiisa marka taabacada iyo baabactii hore lacagta hore waa meesha marka maxaa ka qabsoomay hadda dadka Soomaalida ah loo sheegi karaa gudoomiye waxa loo sheegi karaa horta arintu waa arin dhaqaale waxaan moogtahay aad u moogtahay xogaa u dhagaysa mar moogtay raabiyaha halgeysa oo moogtay waxay yiraahdaan warlaankii dee intaas qiimihiisii waa dhacay dee hal la soo celiyo shilinka qiimihiisa markii loo eego lacagaha kale cid soo celin kartaa ma jirto haddayan jirin sababo dhaqaale wax lagu soo celin karo marka nin aanu وأنا وذا شقين جرنا ده وماشى بنك وذا كشقية بان مالين موت التلفون يصور دراي مركز واحد ما واحد روي ده أدوه ورقات كالعقدة كوب حلا وكبل أنت هاي العقدة هنا صوق الشه مركز العقدة لوب بحيوقات كلوب بحيه هذا مركب أنت وحي عليه كسوق لي العقدات كنا دولار لو سوي بسنة سيدا مركز شيلين كي موت قيميس وكسر نقون كرا وياه marka su'aasheeda waxaan weydiin doonaa Abbas oo dhanka dawladda xiriirka dawladda iyo lacagta ka hadlay marka lacag ma jiri karaa aan dawladda maamulin maxaa si khatar ah oo ka iman kara lacag aan dawladda jirin dawladda lacag ka jirto waynu aragnay marka way dhacdaa maxaa keenaya markii dhaqaalihii badeecad ku bedelo ahaa laga gudbay in muddo ah dhaqaalihii balaartay lacagtii waxay noqotay khasab wax jira marka dhowr nooc bay markaa u imaanaysaa in dad lacag daabacaan noocay rabaan ha ahaadane maxaa dhacaya marka laakiinse maadaama aanay dawlad samayn quality-ga lacagtaas yaa muxuu ahaa fanaanka oranjeri kuna u weyn marka ma yeelanayso denominationskii lacagtu lahaa marka waa hanti wareejin waxa weeye waa dhac hantiyeed oo qof aan muxuu ahaayey ku soo biirin hodannimada ummadda wax yaa uu la wareegay
wasiir waxaa la dhahaa lacagtu marna ma seexato shirkadaha iyo bangiyada inta badan waxaa ku ururay lacagihii dadku haysteen inta ugu badan transactions bay dadku sameeyaan waxbay kala bedeshaan su-aashada marka waxaa weeye lacagtii haddii ay ku ururday dad gaara gacantood haddaa hadda u fiirso waddanka bangiyada isgaarsiinta shirkadaha dhismaha every sector way galeen shirkadihii ay lacagta dadku ku urureen taasi waxay saameyn ku yeelanaysaa lahaanshaha resourciga iyo u sinaanta dakhliga iyo waxa la yiraahdo khayraadka ma la oran karaa marka in lacagtii ay dad gaar gacantood ku ururtay waxay cayilinaysaa qayb kooban oo bulshada ka mid ah dadka intooda kalena faqri bay ka dhigaysaa shirkaduhu baahi baa keentay khasab waxaa ah cid walba mobile money ma yeelan karto shardiga ugu horeeya waxa weeye shirkadu inay telecom tahay maxaa yeelay telecomku wuxuu sahlayaa in alla intii coverageka uu qofkaasi heli karo lacagta inuu qaadan karo ama bixin karo ama cid siin karo ama wax ku gadan karo su-aashaydu waxay tahay maadaama uu waddankeena burburay lacagteennina ay noqotay lacag aada u daciifa maxaa still lacagteena ay link uga tahay lacagaha adduunka ugu qaalibsan uu dollarku yahay maxay tahay reasonska ugu dambeeya maadaama inagu aynan ahayn waddan resource leh oo jira lacagta xooga weyn waxaynu ku bedelanayno maxaynu u dooran weynay lacago exchange-goodu aada uga yaryahay fluctuation-keeduna uu aada u hooseeyo waxa weeye suuqa waxaa laga ilaaliyaa moogta lacag siyaada oo ka badan inta suuqa u baahan yahay kow dhaqaalahana waa la wanaajiya waxbaa laga qabtaa ilaa marmarka qaarkood inflationku wuxuu ka yimaadaa badeecada haddii suuqa laga waayo wixii loo baahnaa haddaadan gudaha wax ka soo saarin dibaddan aadan ka keenin wixii loo baahnaa hadde markaas waxa weye ascaartii waa iska kacaysaa marka waa arrin dhaqaale oo sidaas buu moogtay uu ku yimaadaa mid la mid ah cali xaaji wuxuu sheegay oo hadda hadalkiisa ka mid ahayd hadda ma dhowa in lacag la sameeyo oo waxay la mid tahay faras kii uu jiidayay la horgeeyey marka si dadku taa uga xoroobaan cali oo maxaa taa ku salaynaysaa sababtoo dadkii lacagba ma haystaan waxay rabaan inay xor ka noqdaan macnaha qoladan lacagtan hawada la yiraahdo oo meelaha marmaray horta laga maarmi karo lacag waa tii hadda la cadeeyay oo dawladnimada iyo pride-ka yani gobnimada baa ku jirta dadka waana sababta loogu baahan yahay lacag in la daabaco waxaa kaliya caawa inaynu wax badan ka badanay nidaamka lacageed oo Soomaaliya sida uu shaqeeyo sida uu soo ahaa maanta sida uu yahay iyo labada wax kala taageerin xoolaha kalsooni xataa soo cali xaaji warsameeyo muxuu ahaa nagasiyo lacagta inaynu ku tilmaamay in lacag jirta tahay in layna dareensiiyey aad iyo aad ayay u fiican tahay aad iyo aad ayaynu mar labaad laba saddexaad ku bahadnaqaynaa caawin halkaas haweenkeeda